munaasabad lagu soo bandhigay bug laga qoray astaantii saxaafadda Soomaalida Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke oo loo bixiyay codkarkii caanka ee Cawke ayaa habeenkii xalay toolo ahayd lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Bandhigga bugga Cawke waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano qoraayo ururka suxufiyiinta Somaliland Soldier iyo marti sharaf kale oo lagu soo casuumay. Ugu horeyn munaasabadaasi waxaa ka hadlay oo iba furay Injineer Ibrahim Xamri oo ka sheekeeyay taariikhda qoraaga buugkani Mustafa Ismaan Magaalo. iminka wixii oo iska daadiyeeyo wuxuu yiri hawl kale oo socda waa xildhibaan u socda golaha deegaanka ee magaalada Berbera oo uu resign gareeyay hawlihii dhalinyarada bulshada shaqadii dahabshiil shaqooyinkii kale oo wixii dhow iskaga tagay siyaasadda ugu yara jeestay waxaan filayaa sidoo active ka uu ahaa hawlaha dhalinyarada inuu active u noqon doono xagga hawsha uu maanta damacsan yahay hadduu meeyelka noqdo Berbera inuu ka dhex muuqan doono waayo hawlihii social-ka aanu ku wada jirnay Mustafa tiraba waxaa la guddoonsiiyey ku dhawaad 10 waxaan yaraynaa abaalmarinta ama quraacad yar ha noqoto ama shahaado sharaf yar ha noqoto. Mustafa Ismaan Magaalo qoraaga buugani ayaa isaguna si faahfaahsan u sharaxay waxyaabihii uu ka qoray buugani sababta uu xushay inuu Cawke buug ka qoro iyo walibana caqabadii kala duwan ee uu kala kulmay muddadii uu ku jiray qorista iyo soo saarista buugani. buuggu wuxuu ka kooban yahay 4 cutub waxa uu ka kooban yahay tiro ku dhow 300 page 260 meelaha waxa uu afartiisa cutub ay ka kala hadlayaan marka ku soo dhawaado afarta cutub ee uu ka kooban yahay cutubka koowaad waxa uu ka hadlayaa taariikhdii Allah u naxariistay marxuum Axmed Xasan Cawke oo kooban muuqaaladii aaskiisa warbixin ku saabsan geeridiisii iyo xanuunkii ku soo dhowday ee uu dhintay iyo qaabkii uu dhintay intaas uu ku taala cutubka labaad waxa ku yaala in ka badan 50 qof oo ka mid ah kuwa ugu caansan Soomaalida oo ka sheekeeyay shakhsiyadii Cawke Ilaahay oo naxariistay waxa ku yaala isna cutubka labaad 20 sifo oo Cawke ahaa oo kaga duwanaa dadka kale ee caadiga waxaan qoray muddo ku dhow aan qoray 3 sano waxaan qoray wariyihii weynaa ee Axmed Xasan Cawke dadka aan soo gaarin wariyanimadiisii curiirtiisii iyo farshaxanimadii tabintiisa aan baro. gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland Soldier Maxamuud Cabdi Jaamaxuuto Qoraa Xasan Cabdi Madar aqoon-yahan Cabdikariin Axmed Mooge iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga UCID Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni waxa ay ku amaaneen qoraaga buugga sida hufan iyo taariikhda ku dheehan ee buugani uu qoray waxaana u duceeyeen marxuumkii dhintay ee Axmed Xasan Cawke. buugga waxaa insha Allah waa buug wanaagsan Mustafa waxa وطبعاً وبريء إنه الله عزيزنا الناس عودوا كبروا يعني سهل ما أنا قلت سمو بريء بتوقعوك وهو عرفت أوليه هي عرفت سهل ما وياه اللي الله يبغى وياه الجماعة. مصطفى إسمان مقالة إنه هناك جاء ومدوهين أياس كايا براي كنا صاحبنا معنا كنا غنى مركا إنه dadaaladiisii faraha badnaa ee waday ku daraytana anu waxaan qabaa inuu mudan yahay loo mahadnaqo xaaladda ay xaaladda uu ku jiro luqadda lagu isticmaalayo kelmadaha saxda ee la isticmaalayo dib waxa buuggan wali ma akhriin Mustafa soo sheegay kulli marka wariyo walba horta buugga way nibisada dhalinyarada doonaysa inay aftahamo yeelato oo skillska public speaking ka ku wanaagsanatana iyagana waa anfacaya waa inay ibsadaan waxa qabnaa maanta hadii la heli lahaa madbacad ama madbacadda qaranka jirta runtii lagu jeehayn lahaa inay buugaagta u daabacdo dadka qorayaasha runtii shaqo qaran oo ka wanaagsan inaanay jirteen waxaana caawa halkan ka ballan qaadaya runtii wixii aan ku ballan qaadnay ee buugaasi naga gaadana hadii la yiraahdo iibsigiisa Mustafa waa ka wada hadal inaan hormood ka noqono cid iibsata sida Axmed Cabdikariin sheegana runtii inaan suxufiyiinta u qaybino inaan library-ga soo joogno munaasabada cawdana runtii aanu qabana sanadkiina inaanu ku soo bandhigno saxafiyiinta ka soo qayb gala in awood inay iibsadaan runtii inaanu ka siino marka run ahaantii wuxuu ahaa nin aad iyo aad soo jiidasho u leh qofka wanaagsanna xusuus gaara ayuu ummadda ku reebaa dhammaanteen waxaynu ugu heelin karnaa inuu qudwe inoo noqdo inuu inoo noqdo qof lagu daydo inaynu wanaagiisii sii wadno wanaagiisa la sheego munaasabadan iyo munaasabada ka badanna
in allah u naxariistay axmed xasan cawke lagu xuso inuu mudan yahay. gebagabadii bahda hal qurra ayaa martida bandhigaasi timid uga mahadnaqday ka soo qaybgalkooda waxaana kelmado ku saabsan daabacaadda Hill Press ka jeediyay munaasabadaasi Cabdisalaan Axmed Muuse Cagab sidoo kalena waxaa su'aalo lagu weydiiyay munaasabadani qoraaga buugga isagoo oo mid uga jawaabay waxaana munaasabadani dhowr jeer dhextaalo looga dhigay codadka Cawke isagoo daadihinaya riwaayado xayeysiisyo waraysiyo u qaaday sidoo kalena isaga la wareysanayay waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Hargeysa.